kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa warar xiiso leh oo naga soo gaadhay dhanka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa bartiisa Twitterka haatan loo bixiyay X waxa uu ku soo qoray in dalka Soomaaliya ay ka garaabeen in Itoobiya ay bad hesho taasi oo u dhignayd in Soomaaliya ambaba dowladda Soomaaliya ay raali ka tahay inay qabsato waqooyiga dalka Soomaaliya hadaba siyaasiyiinta iyo muxalliliinta aan idhaahdee ka faalooday xaaladan ayaynu daawadayaal si weyn ugu lafaguri doonaa xilli 6,000 oo ciidamo ah oo ciidamada Itoobiya ay ka gudbeen xadka gobolka Hiiraan uu kala wadaago dhanka dowlad deegaanka Soomaalida kuwaasi oo qixinaya gabi ahaanba dadka shacabka ee ku dhaqan gobolkaasi Hiiraan dowladda Soomaaliya ayaan wali ka hadlin ciidamadaasi 6,000 ee gaaray deegaanka aan idhaahdee gobolka Hiiraan iyo warbixinadii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan Itoobiya ayaa dalka Djibouti waxa ay kala soo degtay hubkii ugu cuslaa oo lagu tilmaamay hubka casriga taasi oo ay ugu deeqeen baa la tilmaamayaa ambaba qaar ay ka soo iibsatay qaar ay ugu deeqeen wadamada BRICS ay dhawaan ku biirtay waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan haduu rabbi idmo laba sargaal oo sarsare oo kamid ah raggii sida weyn u hogaaminayay dagaalada koolcaya deegaanka Amxaarada ayay dowladdu gacanta ku dhigtay kuwaasi oo loo soo bandhigay bulshada dalkaasi Itoobiya ayna Itoobiya aad ugu faantay labadaasi sargaal inay ahaayeen kuwii dhaqaajinay ambaba matoorka uu ahaa xogaga faano ee ka dagaalamaya deegaanka Amxaarada daawadayaal waxa kale oo ku maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida xaaladihii ugu dambeeyay ee galbeedka City colaad cusub oo halkaasi ka aloosanaya waliba hub urursi xoogan oo laga dareemayo ayaynu sidoo kale daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena barnaamijka waxay kala qayb gali doonaa saaxiibka Dr. Shido asagoo inta badan ka faalooda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba dalka Soomaaliya ee soo dhawow ninka lagu magacaabo Dr. Shido waa dhawaay saaxiibe hadii aynu bal ku horayno xaaladda dalkaasi Itoobiya hadalkii ka soo yeedhay Abiy Ahmed ee ahaa oo ambaba ku soo qoray Twitterka ee haatan loo yaqaan X muxuu ku sheegay waan arkay falanqay fara badan iyo siyaasiyiin fara badan oo Soomaaliyeed oo arintaasi si weyn uga hadlay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cornel Fargodo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaad moodaa in uu gabi ahaanba uu xalaashanayo sidii uu maartay ku qabsan lahaa waqooyiga Soomaaliya asagoo marmarsiinyo badan iyo maartay hadallo badan oo ahaa in dowladda Soomaaliya la maqashiyo inuu ku qayliyo ku hadaqayo ayad moodaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu soo qoray ama X-kiisa Twitterka hor loo yaqaan uu ku soo qoray in dowladda Soomaaliya wax ay muddo dheer kala hadlayeen ama muddo dheer ay maartay ay ugu baaqayeen ugu yeedhayeen inay maanta oo waqtigu gabagaba yahay in ay garwaaqsatay oo ay ka garaabtay yiri inay Itoobiya ay xaq u leedahay in ay bad hesho Itoobiyana ay maartay ay badda cas ay hadii ay soo gaadho ay Itoobiya laga xajoon karo inay Soomaaliya ay garwaaqsatay ama Soomaaliya ay qirtay Soomaaliya ay ogolaato wuxuu yiri waxyaabihii wada hadalladana markasta oo anaga Soomaaliya wuxuu yiri aan wax isla soo hadal qaadno aan ugu baaqaynay inay dowladdu garwaaqsato arintii bay Soomaaliya ogolaatay wali dowladda Soomaaliya jawaab laga ma hayo hadalka ka soo yeedhay dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya wax isku hayeen wuxuu war aynu wada hadal ceeb ma aha farta garwaaqsada inaan xaq u leenahay inaan bad helo Itoobiya midaas yartay inay ku gorgordanto oo adduunku shirto loo Soomaaliya idinka ogolaaday in Itoobiya xaq u leedahay bad idinka ogolaaday Itoobiya adduunka marka xaajada garbay ka helaysaa oo inay Itoobiya ay bad hesho garbay ku helaysay waxyaaba Itoobiya qodobka ay haday Soomaaliya qodobka ay ogolaato wixii kale laga soo hadli karaa ayay ahayd barnaamijkii meel lagu soo heshiiyay la garanay meel Xasan iyo Abiy baa hoosta ka wada hadlay kullay Abiy barnaamijku soo bandhigay adduunkana uu sheegay ayadoo English ku qoran ayadoo Axmaari ku qoran ayadoo afarmo ku qoran soo bandhigay wuxuu yiri Soomaaliya way garwaaqsatay wayna qirtay asaga adduunku waxa inta ay soo sheego waxay qirtay in ay Itoobiya xaq u leedahay badasho yay garwaaqsatay wili wuxuu u sheegay shirki ka socday Addis Ababa ee wali socda ee xisbiyada mucaaradka iyo maartay guud ahaan dalka Itoobiya badda cas looga hadlayay ayadana uu ka hor sheegay wuxuu yiri Soomaaliya way qirtay way qiratay in Itoobiya xaq u leedahay badda tagto marka haddaan badda tagno ceeb ma aha maartay Soomaaliya wax la yaab leh kuma noqonayso ka dhiganta waa Soomaaliya
وبطها وسي وهذا بط هلا أم بط تجنو سوماليا نقوم سيدي وحاجة ورالي بكتابة كده جنتا هاي دولة سوماليا رالي أي كده جنتا إن بطة أي توبي تكتو أيوه هذا الكاس كده جنيه هذا الكاس يسوي ذا الجرء هدي الله نهلها وعمل نهلها سومالي توبي ولا شري أيوه برنامج يتكسر بحي حتى دولة التركية اللي بط بيتباع بكلا بالله صوت سوماليا وقالت بالله أي حتى هذا الكأبي كل يكوي شعب كيسون وشيء جوابته دقدقها دولة الصومال الربينة بعزه هذا ساعة يا كسر أنتم قرال كانوا ميديا كجرو وكاس waxaa jirta dhowr jeer oo abiye ka hadlay xaaladda ay Itoobiya damaca guracan ay ku doonayso ummadda Soomaaliyeed inay dhul iyo badba kaga hesho dawladda Soomaaliyana kamayna hadlino ilaa intaas oo jawaabood oo laga sugay dawladda Soomaaliya inay ka jawaabto ayaan jirin gabi ahaanba wax jawaab oo ka soo yeedhay dhanka Soomaaliya markaas oo lama dhihi karo laga sugi maayo devilla Soomaaliya inay ka jawaabto arintaas ma isleedahay waa suurtagal frogodow sababtoo tay Soomaaliya wax ku maamulada gobol fuuliya amsanta lagu meeriyaa Soomaaliya aamusnaan ayaa dhulkeeda lagu qaadanaya oo dalkeeda lagu qaadanaya oo badeeda lagu qaadanaya oo barigeeda lagu qaadanaya Itoobiyaana ku qaadanaysa Abiy Ahmed oo wiilka salka fudud ayaana ku qaadanaya wax walba oo maartay badaha Soomaaliya lagu teekarana asaga ayaa Soomaaliya asaga isoo galaysiiyay asaga saxiixda hadda markuu qorayo wali Soomaaliya way garwaaqsatay annagu meel ma hayna ay ku shireen wixii qarsoon Ilaahay baa kulli in kaso dawladda Soomaaliya tuu weyn laga qabo inay qarsoodi ay wax ku bixinayso haddana asagu wixii lama gabanay ninkan uu shaacinaya saacad kasta xogtiisa oo gaadho uu shaacinaya shalay waxaan ogsooneen inay saraakiil badan oo ciidamada sirdoonka Itoobiya ay tageen Seylac iyo lagu hayay saraakiishaas waxay la kulmeen oo dhaqameedka deegaankaas la kulmeen iyo dad kale oo maamulka Soomaaliya ka socday ay halkaas kula kulmeen way dheendayeen xeebtay tageen حيبتو يتجان مالي استراتيجية فيريان وحيش يجان إن يتوبي جديد صوته وضياش وشجان مركو حيد وضياش إنه وحيش يجان مالي إنه وركين ونقصه الري وده موسى وهوش أنا ويجي تابعين هذا ماشي واحد خلاف وين كمن جرين عيدا ما ينوتين مكان إذا ما إلى على السعودية سلكنا سر دورة الفضل في توبي هان إذا ما إلى على السعودية قابته أمي مسميه بحير هذين قابته سلك عيدا غير يكون سلك عيدا يتوبي هذين إسكابات مركل لقي ما دو كبرية يادول وين كفرية كبروا معه مليار أو هبين عيدا بريون وجود قتال وجوده الصودا معه يتوبي وحاربته أسكوير على الله وتقرن عيالك جحدنات انتين لك بوها إن بضبه جيلو انتين لك بصور أفجر هذا دول أدوين إثيوبيا وحيرتها سلك بريو نوع عزو كلا أو معلومة كنت أقول كرتو هدي العالم صومالي أنا إسكوت منادو أي كنت أقول كرتو معلومة والدفاع له دفاعية ووين له وبورها سلك زارة أي إثيوبيا ربتها مركا إثيوبيا وحيرتها وحواها دول أي إثيوبيا أنك دفاع له ما دول أي ما أرتاي معلومة أسكوت يكون استان ما إيش هذا أنت قبته سلك إثيوبيا ولا كذا ربا تذكر أنت أسود تجرو دم والبركة عناية حول قتل الخلايا تيجاني الخلايا وحاسو إن يتوبينا بابي سرتا مركا نمكن وحي في ريادين سلك بري بدا معايا برية يشان دينيا ملتين يتوبي قيمة خبرات يقول كان عيار لا سعتي ساعات كسر ويادي كلام ما فهمتي مركا يتوبي وحاس مركا يربطو الرجالين ودولة الصومالية افيانو يعني إلا الرجال يتوبيا دولة الصومالية افيانو صدق حسنا دابعي حسنا دولة الصومالية وهلا أسوي حنا دولة الصومالية ويا وقالت أنا أروح الله أنا هو دولة الصومالية وقالني وله بيجوا بحق وجه بدي أنا أبي أحمد أيام مودش اللي يوصل وين دونا وله وحول جواب هي أنا مالك وحول جواب هي أنا مالك تمام لو وجه ولا بأي وأنا حنيز فولي واي مركب ماشان فرقوا وحبا كسر سرقة قال لي أنا بيسكع مسين أبي أحمد قرشيس واسكع عليه أبي أحمد قرشيس وزعيه صومالي مو قار قيمة دوام واحد جريح اللبانة وباقي مدحوينها يولي بقى رئيس الوزراء إنه أزيلان ما دام هجامين تدلك أي كوفة الشلمان إثيوبيا أي باب مانته إنه الباب كسر حيدته وده أي باللب وريجس أمة الصومالية ما هيكون مقطع أرنتها سوارن أضف عن أدبر أسر ويننا هي مدحوينها هي رئيس الوزراء حلقة كدجان شرف في أيه أمة الصومالية إنه يدفع له صوته أمة الصومالية أيه كور جدبن دلكنا مدفع عيان ضد منا كمان صوت حضورني يكون من دلكيسي دين كيسي دفاع عيان ودتكيسي مدينة شعب كوير ربان لكن هذا شقة كوفة شر ضد على الدفاع إن ضدنا على الإعلان دينا عشان شرف كوتا شر تاريخ وقوية تاريخ كوكور من نك دتكيسي أوبن دين على وسك دفاع عنه حتى أن يرسم عليه وحجر بريان ده بكعدون ميديا كودا جرا وده هي والدولة اللي قلتها شذا مجرتين إنه ممكن ندفع عنه أنا وأنا يرسم عليه هذا
oo nin walba oo dhalinyaro Soomaaliya afar oo 15 jir ilaa 60 jirka gaaraya fariimo media loogu qorayo oo la leeyahay ku soo bir dhalinyarada ka caanka Soomaaliyeed dhalinyaro wiilal dhan aqoon yahanaa u istaago Soomaaliyeed u istaago hadda maalin hore meel bay ku shireen meeshii magana meel ay inay gudaha Soomaaliya meel kale ayda muuqaal soo galay maqal oo dhalinyaro ragii media wax ka ku qori jiray oo ka soo hormooda dhalinyaro badan meel isku keenay oo wadamo kale iska kala yimid dhalinyarada meesha fadhiyeen ugu yaraan waxay gaarayeen 30 kun oo dhalinyaro way isku timid oo dhamaantood barnaamijka la dhacsan qaabka barnaamijka loo soo diyaariyay marka horta Afrika waxba ka soo salaglay farqooda saad ogtayba Afrika waxba ka socda Afrika barnaamij waxa ka socda kacdoonka dhalinyarada dhamaan ka socda dal Uganda ma laha soo dal ma awoonin Museveni iska haysto konton sano oo la hadli karin kacdoon ba ka bilowday hadda kacdoon ba Uganda ka socda dhalinyaradii oo dhan ba is abaabulay Museveni xalay waa television soo fadhiistay wuxuu yiri dhalinyarada Uganda kacdoonka bilowday hadda Kenya wada ogay kacdoonka bilaabay dhimbilay ku ciyaarayaan dhimbilo wuxuu ka wada waxa aad wadaan wax loo dul qaadan karba ninkaas waa cadow Museveni waa ogtahay kaaraha mala dul mari laakiin waxay ku dhaarteen dhalinyaradaas inay dalka isbedel ka dhalinayaan Soomaaliduna waa inay saas koleys ma fahanteen adduunka maanta dhalinyarada Afrikaanka waxbay fahmeen inuu Afrikaan oo waxaan arkayay haddaan inta ka dhaxgalo mufakirka ninka lagu magacaabo Sheikh Abdiraxmaan Bashiir waa nin reer Djibouti oo ku nool dalka Canada Soomaalidu inta badan way wada taqaanaa ninkaas wuxuu sheegay in hadii bay ku sameeyo gol yahay horta si weyn buu dhaleelay systemka haatan hogaaminaya dalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre iyo waliba madaxweynaha aad buu dhaleelay wuxuuna sheegay in wadanku handadaad iyo in la qaataba uu qarka u saaran yahay haba ahaatee laakiin wuxuu aad iyo aad ma garanaysaa uu umada Soomaaliyeed ugu sheegay in uu bilaaban doono kacdoon saxwa ah oo dhalinyaro ah oo wadaniyiin oo hadii bay ku sameeyo gol yahay wadankooda u dhiidhiyaysa oo wadankooda ma garanaysaa u istaagaysa oo wadankooda jecel oo wadankooda ma garanaysaa hadii bay ku sameeyo gol yahay inuu ayuu sheegay wuxuuna leeyahay mufakirkaasi marraba ma dhacayso ummad Soomaaliyeed intii dhulkooda la qabsado in hadii bay ku sameeyo Itoobiya ay ku naalooto waana tan hadda waad u jeedaan in khubaradii Itoobiyaanka ay tageen Luqayo iyo Zaylac iyo deegaanada iyagoo indhaynaya abiyana uu baleeyahay afayeenba uu noqday xukuumadda dalka Soomaaliya iyo dawladda hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ee uu leeyahay Soomaaliya way ogolaatay wax walba way ogolaatay ciidamo 6 kunana laga wageliyay maxaan ku dhahay gobolka Hiiraan arrimaha Soomaaliya horta waa runa waxay keenayaan bal mustaqbalka geeska Afrika xaaladaha iyo sidoo ku dambeeyay waan ogaan doonaa wana aragtaan bahadi ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan dawlad hadda ay ku tashadaan oo loo walaa waxaan waa dawlad oo wax weeyaan wax ka qabanaysa ma jirto waa dawlad iska musuq iyo qabyaalad iyo inta heer xumayso idil iyo inta dal xumayso idil baa ku idil hadda ma ba tirin kareen badan ma halkan ka tirin okay haddaan ku soo noqdo ciidamada ka galay ee dhanka Hiiraan maxay ahaayeen aad u mahadsan tahay fargodow ciidamadani horta waa ciidamo aad u tiro badan waa ciidamo aad u qalabaysan waa ciidamo hubka culus ee wata waaya ciidamo maaha garab rarata ah oo jabhadeynaya oo geedi ah oo sidii ciidamada Itoobiya lagu yaqaanay intay baayo bakool ka galaan iyo dhaqankeeda ka galaan markay maalmo soo joogaan soo laaban jiray maaha ciidankan qalabkoodii saadkoodii military nooc walba way sitaan waxaa jiray ciidankan waxaa watay saraakiil badan baa la socotay oo military waxay shir ku qabteen deegaanka feerfeer bay shir ku qabteen waxay kula hadleen halkaasi oday dhaqameedka iyo maartay dadka ganacsatada deegaankaas ay la kulmeen waxay u sheegeen in ay u socdaan amar ah inay wadada laamiga ay controlaan oo maamulaan oo halkaasi ay amaanka Soomaaliya ka sugan ay u socdaan oo ma yaga markay maamulayaan wada la qaatay dalkan yaala dalka loo leeyahay hay dalkani hoggaan male madaxweyne male ra'iisul wasaare male ciidan male wax uu leeyahay dalka Soomaaliya male dal la soo talaabay oo laamigiisa laamiga amaanka sugayna 30 kilomitir ba gudaha loo galay dalkii ciidankani meel kasta ka soo talaabayaan wax ka hadlayna male oo dawladii Soomaaliya ee la rabay inay xuduudaha ciidankayso oo dalka Soomaaliya ayadu u istaagto lama hayo saacadan dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markay tageysay dalka Soomaaliya rajac ciidan bula oo waxa la yiri Soomaaliya ciidan yeelatay Turkiga ciidamo soo tababaray Eritrea yaa tobanku soo tababartay ayadoo xuduudihii qaybo kamid ah xataa xuduudka Kenya ciidamo la geeyay dalku uu maartay gacanta dawladda gobolka Gado dhan hadda waxa Gado iska qulqulaya ma ayna jirin ciidamada Soomaaliya ayaa xuduudka joogay askar ma soo gali karin ma fahantay wixii oo dhan waxay ku soo urursatay
في اللقشن أيها كسر أرصت يسكوي مادين لما هي عسكري الصومالي ما أنت مين اللي جيني لما هي حتى قبل كان أي إذا ماذا يتوبي في دجاجة سوق ليان ولا جين كان إذا ما صوماليين إذا كصوماليين ما إنه كذا قال لما عدادي يمار تاي يو أنت ولا حيسب مقدشو وأنت ورجست به on meel kale una gaar karin war waxaan la tababaraya maalin kasta qalin jibin ay xagee ku dambeeyaan ciidanka intii la daaburo osaadkoodii raashinka si xuduudaha ma la geeyo soo dalka u ilaaliyo maxaa caasimadan uu lagu wada shirsan yahay hoosta la iskaga jiro marka ciidamada Itoobiya horta qorsheen oo weyn wataan hadda nin shalay yiri Somaliland iyo qorshe uu sheegay wuxuu yiri dawladda Itoobiya maalmahan waxay dhaqan gelinaysaa heshiiska ay Somaliland la gashay yartaay dhaqan geliso oo lagu dhawaaqayaa bin Itoobiya si toos ah iyo deegaanada oo wareegaysaa marka qorshahan ciidan socdo waxay iga sheegay waxa ka weydiiyay ciidamada Itoobiya ciidanka Soomaaliya ka talaabaya maxay ka dhigan wuxuu yiri ciidamadaasi waxay u socdaan in Itoobiya xuduudeeda dhan amaankeeda safgarayaan xuduudaha Itoobiya ay dalalka dariska la wareegto ay la wadaagto dhammaan ciidamada loo diray kuwa kaliya ma bir soo hiiraan ma ka talaabin biraa baaya boqol ka talaabeen keday ka talaabeen xuduudka Kenya la geeyay mooyaale Sudan baa la geeyay wabi markii uu tagay meel kasta la geeyay Itoobiya heegan bay gashay dhulkaas ay nartay inay qabsato meel looga soo duulan inayban jirinba hadda meel laga soo galaba marka xuduudaheeda ay la wadaagto koonfurta Soomaaliya meel kasta ciidan baa la geeyay hadda dhankan mudug Puntland dhanka ciidan baa la geeyay oo meel badan baa laga geeyay marka meel kasta oo koonfurta Soomaaliya Itoobiya 7,818 ma gelis gelintaas waxa waaye in ayna koonfurta ayna neefsanin koonfurta in laga neefiyo lama rabo xasana farxadda qayilka baashaalka Hamza away qadar aan lugta taagaya hotel waxa la degan yahay $100,000 habeenkii 5 star 5 star ayaa lugta la taagaya dalkan waa dal duulaan lagu yaaco madaxweynaha Jaxad Guddo xuduudo dhan lagu qulqulaya asna waxaad moodaa baashaalka uu ku jiro dal waxaad moodaa barwaaqa oo intuu gacantiisa ku jiro oo maarta shimbirtii duushaba ay dawladdu la socoto hada walwal war Itoobiyan dadkan yaacaya Itoobiyadan habeen kasta u fikray Soomaaliya si ku qabsan lahayd nimankan ma xididkay fikirkii wadaniyada laga siiyay maxay u dhaarteen maxay dawladdiin bal aad isweydiin Hamza baashaalkaas u jira Xasan Away حسن لعجال ولا كلا وردي وحلة رجال كوكان نوم مجعو تريها بورس كانوا لعجال وكان حفيز لعجو كلا ترمية قرر إذا كان مجعاب إذا كان ود سيارة كان السنة سبعين باش حصل هالكاس العقدين داس نجير تبص نجير تاسعته حسن شغلنا بس ومقلا لكن ذلك واحد كسعودة يا قيلة كسو يريس يا كلا عرق كتاجر يا قيلان هذا فيري صدق كل قويس أي شلو بس بركعيان وأنت قلنا حيسا أنا بعض إلا ما تاي فريزنج ملها كذا ما يستنى يا ماشى لو قبنا أيضا وإلا ما تاي ما طبعا لحكون ما يرى لحكون عيدا يرمى لحكون عيدا تكون بعين يا حتى حوالي بقى جيني بقى العرارة أرجع بقى لو رجل ميجا وما بقى حوالي وجر شوي أنا لقبنا ولا لينا يا تذكر بحوالي هون ريري ولا بقولي كعرارة ولا ميجا عنده ولا قصة هي من عملية ده كان أول كما هلا يوم ورعيدا الشيء ودنك سوق عليه تذكر برجعنا يعني كما هلا هي مفكر ما بجري بدين هي توتر أيوة ياكله كوي حلقة فرمات شقيلية قيلة وما قرن يسافر كسر بحد كوهاي الدولة دي يريد لا يبي ديدنا ما حي حد ما حد واحد يكون هلا المهيان هي شكل هذا كحرمي هي ويفشلين هي أنا حسن حل ما دهلا حسن ويتعزم wax kale oo fariin halkaas u maray Xasan Maxamed mid kaliya u diray waxa Xasan oo inta sharaftu ka dhacin oo umada Soomaaliyeed way isdifaaci laakiin sharaftii karaamadu sharaftii karaamada ka dhacin Xasan oo iscasir waxa war dalkii wakaas malaha kama qaban kari malaha waan ku fashilmay horta malaha ya shamalaha ka asaga Xasan sharaftii karaamada iyo ciziga inta ka dhacin baa tiriye malaha horta markii hore ma de markii hore wax fiican murahaynin laakiin dalkan hadda waa lagu soo duulay soo Itoobiya sharci dhammaan soo gelin beerina waxa arkaysa seen cilmi ay ka talaabay sida uu uga danqan waay kuwa hiiraan soo galay ee shalay dadka 30,000 ee qoys reer baadiye xoolo dhaqatada baadiye ka barakiciyay sida uu uga naxin uga hadlin yuuna saylac iyo masalac way u qaadi nin deegaankiisa koonfurtiisa loogu soo galay ka duwan ma saylac iyo way u gurman waa habeenka xalay tagay marka Xasan shimbirayo heesu ku jira
dalkan xasan ha baneeyo xasan fariinta cuntada waxa weeye xasan oo sharaf iyo karaama ku aan hadaas ciiso wakaas waad mahadsantahay daawadayaal waxaa jira laba sargaal oo sarsare oo ka mid ah ciidamadii xoogaga faano ee dhowaanba dagaalada xoogan kula jiray deegaanka Gondar walayto iyo weliba deegaana culculus oo ka mid ah deegaanka aan idhaahdee ee Amxaarada ayay gacanta ku dhigeen dowladda Itoobiya labadaas sargaal oo ay sheegeen in ay soo qabteen ayna ahaayeen mashiinka faano faanaba de mashiinka ay ku kacaysay labada sargaal buu ahaa arintaasi aad bay dowladda Itoobiya u bumboonanaysaa maxay ku muuqataa arintani waxay u muuqataa horta dagaalo culus ayaa maalmo ugu dambeeyay socday oo u dhaxay militariga Itoobiya iyo dagaalyahanada Axmaarada oo jihooyin badan ka socday xataa dawladda ay culus badan ku darato ciidamo cusub ay kor iyo hoos ka daadinaysay si ay nimanka wala dagaalamaan laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa waaye laba sargaal in gacanta lagu soo dhigay labada sargaal ma dagaal baa lagu qabtay ma iyaga soo dhiibay warbaahinta dalka Itoobiya si kala duwan uga hadashay xoogag waxay dhaheen nimankani waa niman sanadkii hadda ugu dambeeyay dagaalka socdayba doorka ku jiray way kululaadeen ayaga soo dhigo si maarta iskooda ay ciidamada ugu yeedeen niman ma dagaal lagu qabtay kuwana waxay leeyihiin nimankani si gaadma yaa lagu qabtay waa laga dubdaatay dagaalyahanadii la socday gamba laga dhigay ayagana waa la qabtay dagaalka qayb ka mid dagaal lagu qabto ciidanka kuma dhigno jabay hadii inta la dagaalamo saraakiil gacanta lagu dhigo dagaalku wuu sii soconaya ninkii la qabtay ninba bedelaya laakiin inay soo dhigto hal sano doorka ku jiray taana deefaanadu markaas waxa la karaa wix la sheegay iyo wax ka jira la markii iskana naga la doonto rag badan baa hoos kala sibto yiri iskana naga waa CID oo jaajo barnaamij sheegayeen oo lama shaqeyn karo markii iskana naga uu xilka ku soo baxay gudiga ugu sare ee go'aanka gaaray deegaanka Axmaarada ama xagga faanada ee ka soconay ku soo baxay awsi kasto ay hada fargudow gobolka Axmaarada waa gobol colaadeed waa gobol aan waxbarasho ka jirin waa gobol maartay wax horumar ka jiro waa gobol laga maqlo kaliya qoriga shanqadhiisa kaliya laga maqlo waa gobol wadadii ay Tigray labada sano ku jireen galay asna listigaas galay waana wuxuu ugu talagalay korneylku wuxuu ugu talagalay labada qowmiyadood ee dalka Itoobiya ugu tunka weyn dhanka siyaasadda waa nimanka Tigray iyo nimanka Axmaarada inuu dhulkooda noqdo dhul maartay digay dambas noqdo oo 91kii wixii ka dambeeyay loo celiyo inuu ugu talagalay alla qorshaha ee Oromada ay qaadatay gobolka Oromada waa artay waxa horumar ka socda guryaha la dhisayo magaalo wadareed waliga maqash magaalo dhan oo la dhisay adduunka maartay gobolka Oromiya lagu arkay caalamka qaaradda Afrika ma laga dhigin waa magaalo dhan guryo wadareed baan maqal jiray hal isteed iyo laba saddex isteed oo dadka loo dhiso laakiin magaalo dhan oo laamigeedii xafiisyadeedii xaafadaheedii xaafada degmooyinkeeda la dhisayo oo la yiri ilaa la bogo yaa degi doonaan wala yahay Oromada degi doontaan malay yaa laga dhisay gobolka Oromiya waa sabab qarka ku hays gobolada kale Oromiya oo nasaasi wada dhismayaan laamiyada daarto ee magaalada maxay tii caasimada Oromiya maxay tii xagga maamulka Adama xaaflan dhan waay ma fahantay Axmaaradii iyo Tigraygana meesha qiiqa baxay iyo busta iyo gaariga qaloocan ee darbiga ka dhacay ee yaala waa jaabi ninka hadda korneelka daada yar oo u fikiray haddana meesha waxaas wuxuu la rabaa Soomaaliya la rabaa inay noqoto meel ayadana firado ay ka kacdo firad meel ay ka kacdo yuu la rabaa hadduu Ilaahay geesiyaal u soo bixin Soomaaliya ka difaaca cadawgan ee saas kale ninka la dabacsan marka gobolka Axmaarada dagaaladii wali way socdaan hadda dagaalka u dambeeyay wuxuu ka dhacay Gondar hareeraheedu ka dhacay halkaan khasaaro badan ayaa ka dhacay dad badan baa halkaasi ku hadbeel oo hubka noocyadiisa kala duwan iyo halkaasi lagu tijaabiyo hada dawladda aad bay duqeymo waaweyn bay halkaasi ka geysatay marka gobolka Axmaaradu xaaladiisu farqadu waa xaalad aad u adag oo meesha markay soo kala baxaan markayna wakaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jira Itoobiya wali ku dhex jira Itoobiya kule gulufkeeda colaadaad midka gudaha iyo midka dibadda oo ay Soomaaliga ku doonayso inay ku burburisaba waa ay sii kordhisay waxaa jira in Itoobiya ay hub culus oo lala yaabay ay kala soo degtay dekedaha dalkaas Djibouti oo aad u far badan waliba waxa la leeyahay qaar free ba lagu siiyay qaar way soo iibsatay qaar deyn bay ku soo qaatay hub aad u culus hubkaasi ay Itoobiya soo iibsatay awal hore diyaarada iyo dhan walba ka soo iibsatay muxuu ahaa iyagu dhankay doonaysaa inay ula dhaqaaqdo niyo warta wala yaaban yahay dawladda Itoobiya geediga ay ku jirto iyo maarta hubkan iyo isqalabayntan aad ku tirada badan Itoobiya ay sameynayso adduunku si ugu soo haya dawladda Itoobiya hub la'aan ma hayso Itoobiya horta waa dal aad moodid ba dhaqaalihiisa iyo miisaaniyadiisa koobaad ba inuu hubun yahay wala yaabay waxaan huba meesha loo urursanay waxaan huba meesha loo urursanay wala yaabay Itoobiya
waxay la soo degtay maanta hub aad u tiro badan bay la soo degtay oo media doodka aragtaan u malaynayaa oo ugu dambeeyay ee casriga gaariyaha gaashaaman gaadiidka una keen xabadu ayna karin oo aad la yaabay ugu dambeeyay waxaan malayn hubkan marka dabaabaad baa ku jira mise waa hub iska caadi ah caadi ma dabaabaad baa ku jiro oo saaran military aad culus baa ku jirta yaa ku jirta xataa qalab isbaabartay oo aad loo qariyay oo xamuul ah jiro oo la yiri waa hub lagu xidhi doono gudaha dalka Itoobiya ayaa jira oo dib loogu hagaajin doono oo laga qariyay media ayaa jiray laakiin gaadiidka iyo taangiyada iyo waxa ay soo bandhigeen waa saarad aad u culus waxa la sheegay hubka qaybo kamid ah inuu dalka Ruushka lagu sameeyay dalka Ruushka in lagu sameeyay ayaa la sheegay Itoobiya waxaan ogsoonahay waxa ku beertay BRICS dalka Ruushka iyo China iyo South Africa iyo dalal badan ay kamid yihiin hoggaanka ay u hayaan Hindiya dalalkaas ay ku beertay marka waxaan maadaama BRICS-na Itoobiya shuruudaha waxa kamid ah inay badasho BRICS inaad ku beerto adoon badan ku beeri kartid Itoobiya abiya asaga yiri annaga keenayna bad annaga keenayna qolo xoolo dhaqata ah oo Soomaali ah oo hoggaan xumo dishay oo wadani xumada dishay oo maartay dalkooda aan jeclayn ayaguna aad isku xiniyo weyn ya darisna lahaybir kuwa baana ka soo qaadiyo baddaas markuu ilaahay wuxuu rabaa meel kasta oo dalalkaas ah inuu gaari karo ciidamadiisu dhoolto ay ku sameyn karaan qorshaha hadda socdana kamid tahay la filaysa saacadaha soo socda ugu dhawaaqo horta ay Itoobiya ku dhawaaqaysaa heshiiska Soomaali waxay qarqarisaba iyo wuxuu xasan la gagabadaba banaanka ayay imanaysaa 24 saac soo socdo Itoobiya ku dhawaaqaysaa si ay wax la wareegtay iga qortaas waa shirka hadda socda yaa laga dhawaaqi doonaa markuu abiyu shalay yiri ama xalay uu Twitterkiisa ku qoray Soomaaliya way garwaaqsatay de way noo ogolaatay ka dhigneed kartay waxa lagu dhawaaqayo kaliya waxa waa la wareegno qoys Soomaaliya xog kale oo ku haya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland xafiiska rasaaruhu wuxuu yiri حتى أقوسية مني ما بينا هذا كله بغدان سومالان لكن دقن قليل سي أن تبرت الصومال دوتس تبرت هذا واكو شيء دقن قليل برينا تجا بدينا تجا وحكي كانت لنا كم عامله حبلا يدون جوا بسرعة راعية يتوبي سومالان سرعان واكو برامج لكن هذا واقع هي برامج هذا يوشيء هي إنه لازم هنا أقوسي يو حدا الشيء ولو حكر وشيء وحين هذا أقوسي كتكتان سومالي أدري مشغول بس سومالي وحكي قيل محاول قيبها سومالي كجودة وحلو إنه واحد قيلات بين أقوسي هذه الدين بيري هذا أقوسي سكبة ديزان هذا واضح يستنبري وهذا يستنبري بحاجة بحياة ماشي بحياة كونفور قلبات بهستان هيرش بالله هستان waxaan ka hiiraan iyo dhulka dhamad yaa la wareegteen Jubbaland gido dhamad ka haystaan wax qayla ka jirtay wiil anagu kuwaas kale ma noqonayna waxba aqoonsi ugu dhigay wiil laakiin gal oo dega oo waxa ciidamada galaan saldhiga samaystaan badda bariga samaystaan taa ma la mid tahay wiil arwaq wuxuu yiri hadayna aqoonsi aan lagu dhawaaqin aqoonsi hadba galaan ka sheegi doonaa markii aan waxaan odhan oo midoobo adduunka uu ogolaado in ciidamada badda joogaan adduunka uu ka habsay xisbada ay hoos u dhacdo yaan aqoonsi sheegi doonaa laakiin hadda wuxuu yiri hadii aqoonsi maanta ku dhawaaqdaan waxa laga yaabaa xoog kale oo yar ordayeen la arko qeyr qeyr dawladda wali muqdisho qeyr si wada laakiin wuxuu hadda dad si hoos u gashaan koonfur galbeed kale noqon doonta iyagoo laba maalin la isku weydiin doono barnaamijkiisa ay loo sheegay Soomaaliland ma loo sheegay waxay naga noo sira wasideen aqoonsi kaal baan sheegi doonaa laakiin hadda han noqoto ciidanka Itoobiya gada ciidanka Itoobiya boqoltay ciidanka Itoobiya bay dhawaasay ka samaystay inta wax noqoto qoladan marka ay koonfurta maxaan ku dhahay lacagaha uu kulay ugaarsada ayagu ka dhagalaayeen madarka dam jadiidku ma dam jadiid waxba ka suun anoo ku sheegay dam jadiid kama hadli doonta ciidamada Itoobiya ay seel ciidan weys laga samaystay oo qabsada dalka sida gada uga hadleen sida ayna baay boqol hiiraan uga hadleen yeena uga hadleen barnaamijkan Soomaaliland ma soo rameys hadda iga qor haye wakaas barnaamij soo gabagabeeyaan waqti aqoonyahankii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradkooda ma dhagahay sii deysteen ma waxba soo guuxay maxaa ayaga xagaas maxaa ku dhacay dhibaatada jirta waxa waaye xasan baa hor fadhiya dadku waxay moodayaan war nin baa dalkan loo doortay oo dalkii Soomaaliyeed madaxweyne ah laba waa midninku hadduu wardad iyo isdifaaca oo wax la gartay duwal badeegaysa difaacan wixii kale oo isu gurmanayaan iyadoo asaga difaac wax u dhacay male laakiin nin dhaqaale urursanaya haddana madaxweynimadii sheegan dalkii hortaagan dhibaataan haysatay ilaahay naga soo gaaran lana xasan wakaas haye xasan waa musiibo la soo diray haye wakaa hawsha aad u waqti fargodow waa gartay
horta aad iyo aad baad umahadsan tahay shidow ummadda Soomaaliyeedna de kulli halkan wacyigelintooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo xaaladda kolba meeshay marayso umbaan horta halkan ma garanaysa hadii bay ku soo gol yahayaan uga jeednaa in badan baan ku celcelinay in villa Soomaaliya iyo maxaan ku dhahay waxba ka jirin wax uu ma garanaysa magac un baa ka jira mooyaane laakiin hadda ummadda Soomaaliyeed baa dawlad iyo kan ummadda Soomaaliyeedna waad aragtay badee waa ninka lagu magacaabo shidow oo iska qalbi jabtay wax dawlad sheegi ma aragtay ma jirto wax dawlad sheegi iyo wax system sheegi iyo wax wadhihi waxba kana waxa weeye midna ma jirto arinta kale aan aad u dhaliilsan waxa weeyaan asxaabta mucaaradka iyo siyaasiyiinta laftoodu kama hadlayaan oo isgaabinayaan wadanka bohosha ku sii dhacayana way maart aad iyo aad bay u arkaan oo kama hadlahayaanba marka maxaad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijkeen barnaamijka waxa ku soo gabagabeynayna horta xaaladdu aad bay u adag tahay marba marka ka dambaysan waa ka sadaraysaa qorshayaasha socdaalada waa qorshayaal aad waaweyn nimankan de wada tahay dalkii caadi waxay ugu gacan galiyeen Ethiopia iyo si toos ah dalka ugu gacan galiyeen wayna ku wareejiyeen hadda waxa socday dhaqaaqa socdana waa mid daawan oo aha in Ethiopia ay si tartiib ku gasho hadda markuu abi leeyahay way garwaaq Soomaaliya waxay ka dhigan tahay badda taga aqoonsi isu waxaan naga wada soo wada gaaniyo horaan warkan dadka ugu sheegnay villa Soomaaliya way logtahay villa Soomaaliya ku dhig Muuse Suudi Muuse Biixi Umar Geelle barnaamijka Ethiopia hal mid baa qaylada iyo Soomaaliya ka keentay Soomaaliya yaana dhigay xas shaqo tiimkiisa damjididka ka keentay aqoonsiga naga daayo qabsada waa war qabsada laakiin waxba aqoonsan dad marka barnaamijka magaca aqoonsiga naga daayo marka barnaamijka yaa la dhigay dalkiiba Ethiopia aqoonsiga inuu wareegtay yaa la dhigay marka barnaamijkan ka hadlaynay aha Xasan Umar Geelle iyo Muuse de waxba yaan gaar loo ceyrsan way isog tahay marka barnaamijku horta halkaas maraya ummadda Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa in geesiyaal soo bixi doonaan Ethiopia la iska difaaci doono Ethiopia hooyo abaha maartay ay ka dhici doonto yaan rajaynaynaa fargodo waxaan tagaynaa dhanka iyo galbeedka City gobolka City ee dowladda Soomaalida qayladaan aad u balan ayaa ka taagan oo aad ogsoon tahay colaadii in la joojiyo la isku weeyo colaadii ma joogsanin ciidamada deegaanka Soomaalidu waxay sheegeen inay cafartu ay roondooyin sameeyayso magaalooyinka ka soo baxeenba magaalooyinka la isku weeyo laga saar cafarta dadka dib loogu celiyo ciidankooda ka soo baxayba waako wadooyinkii ay hore ugu soo bixi karin yaa ugu soo baxeen ay gaadidkooda wata dagaal bay cafar isu diyaarinaysaa adan allaan waarta waraysi soo bixiyay wuxuu sheegay in deegaanka Soomaalida galbeed sida hooyo abahay ka dhici doonto hubka iyo ciidanka ay cafar soo daabulayso wuxuu sheegay wax xisaabta galaya ma waxa wadana qorshe waaweyn ciidanka Soomaalida si lagu daabuli lahaa ay Ethiopia diyaar heber looga saari lahaa deegaanada ay hadda ay ku sugan si looga saari lahaa ayaa la diyaarinayaa yiri marka ummadda Soomaaliyeed horta ummadda Soomaaliyeed hoggaan xumo ummadda Soomaaliyeed ku habsan waxaan ummadda Soomaaliyeed hoggaan xumadaas inay ka bixi doonto wakaas aad iyo aad buu u mahadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Dr. Shide oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed barnaamijkeena faaqidaada imaha ayaynu ku gunaanadeynaa inuu dib dambe u kulmi doono mid lamid ah waxaan ka tagnaa nabadgelyo